Assalaamu calaykum asxaabta meel walba aad joogtiin kusoo dhawaada meel walba aad joogtiin. Konami ayaa barteeda Twitterka soo dhigtay football base waxyaabo badan ay ka bedeli doonaan 2022 inta gameka la gaarin 2022 sanadka in la gaarin waa labo bilood kadib ay update ku diri doonaan. Waxaa ka mid ah waxyaabo kusoo bedeshay hadda barteeda Twitterka soo dhigtay in ay garoomada bedeli doonaan ebil hal garoom oo kaliya ay qof walba business ay ku dhigi jirtay. Hadda haddii Juventus ay qaadatay Juventus garoonkeeda ay ku dhigaysaa, Bayer haddii ay qaadatay Bayer ayaa ku dhigaysaa. Garoomada dhan waa kiilisa koox walba haddii aad Liverpool ay qaadato Liverpool garoonkeeda Anfield ayaa ku dhigi kartaa. Waxaa kaloo lasoo bedelay ciyaartooyda libiska iyo markay garoonka soo bedaan si wajidooda iyo wajida caadi lama aqoonsan karo waa si caadi ah. Waxaa kaloo lagu soo daray skills badan ayaa lagu soo daray hadda hore uguma jirin qof cag wareejis saaid loo dareemayo ma ku jirin. Gamekan horta waxaa ku dhigi kartaa gacan hadda gacan waa lagu dhigi karaa laakiin Konami si fiican gogo iyo qaab dariiqa ma fiicna hadda haddii dad dhahayn hore loo dhigi jiray hore waa loo dhigi jiray laakiin haddii youtuberada waaweynka dadka oo ku dhigi lahayn suma laakiin hadda qof walba ku dhigi karto Konami ayaa shaacisay si rasmi ah. Waxaa kaloo la soo wadaa Neymar oo 103 tagayo oo PSG laakiin labo bilood kadib sheegeen Konami Neymarkan waa kan Neymarka hadda yaalo oo ku jiro oo la keenay iconiga 102 kan isku mid maan Ansu Fati iyo waxyaabo badan ayaa laga soo bedelay ciyaartooyda dhan. Kooxaha waaweyn Rush iyo waxaas waa la soo bedeli doonaa. Waxaa loo maleynaa Liverpool iyo waxaas iyo Real Madrid dharkooda caadi in loo soo celin doono. Koox walba dharka rasmi ah hadda ku dhashay ay ku dhigi doonto ayay Konami shaacisay. Konami dad ay xaflad ku soo yeertay Messi iyo ayaa ka mid ah Messi, Gerrard, Pique, Iniesta. Konami ayaa tiri in ay wax kale game ku soo dari doonaan oo la yiraahdo warta base 5 dadka base 5 waa u bixi kara waa isku soo aadaysin online weesha rasmi ah. Waxaa kaloo jiro waxa la yiraahdo match pass waa iibsani lacag waa match pass waa sida Royal Plus dadka PUBG dhila ayaa Royal Pass yaqaan wax ayaa furinaysa taasna waa si rasmi ah match pass system taas waa si rasmi ah. Asxaabta horta waa mahadsantiin meel walba aad joogtiin subscribe like share waxaa soo wadnaa fiidiyoo kale insha Allah goor dhow ayaa soo geli doonaa ay Konami shaacisay mar dhow in soo wado like share intaba.